gudoomiyaha golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay mas'uuliyiin ka tirsan barnaamijka horumarinta qaramada midoobay ee UNDP iyo xafiiska siyaasadda qaramada midoobay Soomaaliya ee UNSOM waxayna ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin u diyaargarowga doorashooyinka soo socda ee dalka uu gali doono iyo hirgelinta shuruucda doorashooyinkaasi muhiimka ah. waxyaabaha aadka looga hadlay waxaa ka mid ah maalgelinta geedi socodka doorashooyinka dalka iyo qorshayaasha diiwaangelinta codbixiyaasha. kulanka ayaa sidoo kale inta uu socday waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ah sidii qaramada midoobay ay taageero dhaqaale iyo mid farsamaba ay ugu geysan lahayd doorashooyinka iyo shuruucda muhiimka ah. ugu dambeyn waxay isla soo hadal qaadeen arrinta dhamaystirka dastuurka dalka oo ah arrin muhiim u ah doorashooyinka dalka ka dhici doona sida uu gabagabada kulanka warbaahinta qaranka u sheegay Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo ah xogayaha guud ee golaha shacabka. qorshayaasha ay ku gaarayaan meesha qorshayaasha loo bandhigaa kaabayna maaragtay wixii ay kaalmo naga siin karaan naga siiyaan ha noqoto tu dhaqaale ha noqoto tu farsamo ha noqoto tu tala bixin wixii aan weydiisano intii ay ka kari karaan ay badanaa naga caawiyaan. marka kaaba maanta laga hadlayay oo uu koow ka yahay dastuurka iyo shuruucda badan ee asaasiga u ah in lagu gaaro doorashada oo ka mid yahay xeerka doorashada ama sharciga doorashooyinka sharciga diiwaangelinta sharciga maaragtay axsaabta badan oo ka mid yahay sharciga muwaadinimada Soomaalinimada oo ka mid yahay diiwaangelinta codbixiyaasha oo ka mid yahay wacyigelinta dadweynaha oo ka mid yahay la tashiga dadweynaha waxaasoo dhan isugu jira oo yacni waxa weeye xamlad loo dhan yahay oo qayb kasta oo bulshada ka mid ah taabanaysa. marka arrintaas qodobadeeda sida u kala horeyso waqtiyadeeda iyo kolba shaqada la qabanayo ee hay'aduhu shaqooyin isdhalay ay jiraan marka mid la qabto ta kale ka dambayso iyo shaqooyin isbarbar socda labadaba way jiraan. marka waxa weeye yani si loo waqtiyeyn lahaa ee muddada loogu talagalay lagu sameyn lahaa ayaa laga wada hadlayay.